waatixanaha saddexaad ee dagaalka Yurub ay joojin weysay aynu ku falanqeynayno colaadda imika u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka ayaynu ku faaqidnay halka ay ka soo bilaabatay 2014 inaga oo ku dul istaagi doono ilaa iyo 2022 imika aynu ku jirno maxaa dhacay anigoo Cabduqaadir Maxamed ayaa idin socodsiinaya ku darista jasiiradda badda madoowe ee istaraatiijiyadda ah ayaa si degdeg ah u daba socota afti degdeg ah oo toddobaad ka hor axadii hore la soo dhaafay loogu qaaday taas oo ay dadku halkaasi deganaya ay si weyn u taageereen ka go'itaanka Ukraine kuna biireen Ruushka inta ugu badan shacabka Ukraine ayaa baqdin ka muujiyay arintaasi dhanka kale xulafada reer galbeedka ayaa la dagay iyaga oo ka jawaabaya ku darista dambiyada xubnaha G7 ayaa cunaqabatayn adag ku soo rogay Putin iyo Ruushka Abriil 2014 xiisadaha dhiilada colaadeed ee Ukraine iyo Ruushka ayaa sii korodhay ciidamada Ukraine iyo dadka ku nool gobolka imika gooni u goosadka ee Ruushka madaxbanaanida u aqoonsaday ayaa ku dagaalamay isku soo baxyo waaweyn taas oo ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac fara badan Putin ka Ruushka ayaa lagu eedeeyay inuu sii kicinayay xiisada halkaasi ka jirtay rabshadaha ayaa si dhaqso leh u kordhay bilihii ugu horeeyay 2014 boqolaal shaqaale ee Ukraine ah iyo mutadawiciin ayaa la dilay waxaa jirtay cadeymo muujinayay in dawladda Ruushka ay hub iyo saanad military ku deeqday kooxaha gooni u goosadka Ukraine ka hor inta aanu si toos ah dagaalkani u bilaabanin iyo qaar kamid ah askarta iyo saraakiisha militariga Ruushka ayaa kamid ahaa kuwa falaagada gooni u goosadka Ukraine 29 bishii Agost 2014 tirada dhimashada ayaa ku dhawaatay 400 oo qof waana tirada dhimasho ee ugu badan taas oo maalin qora taariikhda u gashay Ukraine saameynta ay geysatay rabshadaha halkaasi ka dhacay ayaa ku fiday ilaa xuduudaha Ukraine July 2014 duulimaad rakaab ee nooca MH17 oo ka timid dhanka iyo Amsterdam kuna sii socotay Kuala Lumpur ayaa lagu qarxiyay hawada Donbas gooni u goosadka ee Ukraine 298 kamid ah dadkii rakaabka ahaa ee diyaaradda ayaa dhintay cadeymo ayaa muujiyay in diyaaraddaasi lagu duqeeyay gantaalada dhulka laga rido howlgalkaasi waxaa fuliyay cutub kamid ah ciidamada militariga Ruushka ee ku milmay falaagada Donbas waxa uu ahaa mid kamid ah dagaalka qarsoon ee Ruushka uu ka waday dhulalka Yurub iyaga oo bartilmaameedsanayay muwaadiniinta reer Yurub 2 bilood ka hor inta uusan bilaabanin dagaalka imika socda Petro Poroshenko oo ahaa wasiiru dawlihii hore ee Ukraine ayaa loo doortay madaxweynaha midowga Yurub qaybta ka hortaga musuqmaasuqa waxa uu sidoo kale balan qaaday inuu ku celin doono Crimea Ukraine sidoo kalena uu soo afjari doono khilaafaadka Donbas Jarmalka iyo Faransiiska ayaa bilaabay wadahadalo kaas oo ay ku dhexdhexaadinayeen Ukraine iyo Ruushka bishii February 2015 dawladda Belarus ayaa saxiixday waxa loogu yeedho heshiiska Minsk II waxa ay doonaysay inay dib u soo celiso maamulka xuduudda Ukraine ay la wadaagto Ruushka balse kaliya heshiiska sida uu tibaaxay marka ay doorasho ka dhacdo dhulka lagu murunsan yahay waxa sidoo kale heshiiskaasi qodobadiisa kamid ahaa wax ka bedelida dastuurka dalka Ukraine kaas oo ay ku qoran yihiin qaar kamid ah qodobada sharciyeed qeexaya qabsashada Donbas heshiiskaasi Ruushka looguma magacaabin ka hortagida dagaalka inkasta oo cadeyn lidi ku ah taasi ay qayb ku lahayd